muuqaalkan waxaa kugu soo gudbin doonaa siyaabo badan ka saacidi doona isticmaalka kombiyuutarkaaga. Inta aad gudagelin muuqaalkan, fadlan haddii aad ku xirtaa channelkan Xalani Media, subscribe dhaho, gambalelkana furo si aad mar waliba muuqaalada kusoo gaaraan. Maanta muuqaalkan waxaa kugu bari doonaa siyaabo aad u fara badan kana saacidi doona isticmaalka kombiyuutarkaaga. Tusaale, channel ayaad waxa ka daawanayday muuqaal, channelkaas ma garanaysid magac ku qoran ama magacii ku qornaaba waa uu dhib badan yahay. Dabcan waa iska close gareysay adoo raalli ka ahayn, gacanta kaga dhacday si aad u soo ceshanaysaa iyo qaabka u soo ceshan lahayd iyo waxyaabaha aad u isticmaali lahayd shortcut-yada ayaan maanta meeshaan kugu sharixi doonaa. Kow, hadda muuqaalka waxaa inoo furan channelkan Xalani Media ay ku qoran tahay. Waa iska close gareeyay, dabcan raallina kama baxeen inaan close gareeyo way dhacday, gacanta iga dhacday. Waxaan rabaa inaad dib u soo ceshto. Qaabka u soo ceshan lahaa waxaa ku soo ceshanaysaa furahan aad ugu fudud. Waxaad leedahay Control Shift T. waa kana wuxuu kugu soo celiyay dib xalnihii aad close gareysay gacantaada kaaga dhacday. midda kale aan rabo inaad ku baro meeshaan waxaa jirto meeshaan keyboardkan aad u jeedaa. waxaa rabtaa erey bixin inaad hal erey qoraaladan oo dhan aad hal erey kala soo baxdo. Sidee u heli kartaa? Waxaad u heli kartaa waxaad isticmaalaysaa isla furahan kale ah Control F aad isticmaali doontaa. Tusaale, ereyga aad rabtid inaad kala soo baxdo si gaar ah ayuu kugu calaamadeyn doonaa. Tusaale waxaan la soo bixi doonaa ereyga sheeko. guud ahaan wixii sheeko ahaay oo dhan uu calaamadeeyay waad u jeedaan. Sheeko meel walba sheeko soo gasho wuxuu ii saaray heeraad waa ii helay oo ila gaalay. Midda kale aan rabo inaan ku tuso meeshaan waxay tahay channel sidee u save garaysanaysaa. Tusaale, muuqaal channel ka daawanayday maar walba adoo searching ku raadin si automatic ah kombiyuutarkaaga ma bari kartaa channelkaas wuxuu rabo ha noqdo. Tusaale, hadda waxaan ku tusi doonaa channelkan Runey. hadda waxaa ku soo raadiyay searching waad u jeedaa qaybta searching waxaa ku soo qoray magaceeda. maba doonayo hadda ka bacdi inaan ku soo raadiyo searching oo waayo waxaan rabaa inaan maro kombiyuutarkayga si automatic la mar walba kombiyuutarkayga soo galo anoo Runey qorin so asigoo ii kiciyo kombiyuutarka. Tusaale, furaad isticmaali doontaa ku tusi doonaa. Tusaale waa kan waxaad leedahay Control D. waa kan magaca oo baxsanaysaa marka magaca oo bixinaysaa channelka magaciisa ama aad ku aqoonsanaydo wixii aad ku aqoonsanaydo adaa yaqaano. haddaan Runey aan dhahday marka hadda anuusan Runey dambe searching ku soo raadin si automatic la kombiyuutarka wuu ii bartay mar walba wuu ii soo saari doonaa. Tusaale waa kana hadda Runey haday ku soo qoray channelkan walaashan si automatic la wuu ii kiciyay waa kana. midda kale aan rabo inaan ku baro waxay tahay qoraal akhrisanaysaa. dabcan qoraalkii marka akhrisanayday sidee keyboardka ugu soo weyneyn kartaa ugu yareyn kartaa furo noocee u isticmaalayda. waxaad isticmaali doontaa shortcut-kan waxaad isticmaali doontaa Control Plus. guud ahaan wuu ku soo weyneynaa Control minusne dib ayuu ku celin doonaa. marka waxaan rabaa mid kale inaan ku tuso. waxaa hadda ii furan 1 2 3 4 barnaamij ay furan. afartaas barnaamij anoo muusigay ka qaban barnaamij walbana right ku kordhin. waxaan rabaa anoo inaan furihii aad u isticmaalayd inaad tuso. waxaa laba furaad u isticmaali kartaa. waxaad isticmaali doontaa Control Tab oo ah midka 1 2 3 kee ku geeya waaye. Control Tab aad isticmaali doontaa midka rabto ayuu ku geyn doonaa. midka kale ayuu ku gudbin doonaa. midda kale isticmaali doontaa waxay tahay Control iyo midka rabto 1 hadaa rabto 2 3 xarfo ayaad u isticmaali doontaa. guud ahaan waxaan u maleyn doonaa inuu muuqaalkan ku saaciday. fadlan haddii aad ku cusubtahay channelkan